kooxda kubadda cagta ee gaadiidka ayaa maanta soo bandhigtay saxiixa ciyaaryahan Xasan Cabdinuur Geese ee xasaasi. ciyaaryahankan oo wada hadaladiisa ay waqti aad u dheer u qaatay in kooxdan iyo ciyaaryahanku ay isfahmaan ayaa ugu dambeyn maanta Isniin la soo gabagabeeyay. warar kala duwan oo ka soo baxay arrimahan ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta ee degadaha ay iyadu ka mid ahayd kooxaha xiiseynaya ciyaaryahan xasaasi, laakiin dalabaadkii xidigan uu dalbaday oo aad u tiro badnaa ay kalifeen in kooxdaasi iyo kooxo kale oo horyaalka Soomaaliya Premier League ciyaaraba ay gebi ahaanba iskaga baxaan. gaadiidka waxay ogolaatay waxyaabo tiro badan oo kamid ahaa waxyaabihii uu qornaa ciyaaryahankan, kuwa ay kamid ahaayeen inuu qaato lambarka 6, inuu boos joogto ah helay in sidoo kale mushaarkiisa uu noqdo mid aad u tiro badan. mushaarkay siinaysa kooxda gaadiidka ciyaaryahankan haddii intii uu rabay ay si toos ah u aqbashay kooxdu, waxa uu noqonayaa hadda xidiga ugu mushaaraadka badan ee kooxda gaadiidka. sidoo kale xasaasi waxa uu dalbaday lacag tiro badan oo gaaraya ilaa $1,000 oo horumaraysa kana madax banaan mushaaraadkiisa in qandaraadkiisa qayb looga dhigo. waa tan sababaha kooxo kala duwan oo horyaalka Soomaaliya Premier League ciyaaraha ay uga baxeen arintan. xidigan ayaa waqti madow uu ku soo qaatay sanadkiisii ugu dambeeyay kooxda Horseed, waxa uu hadda calfan doonaa inuu mar kale u ciyaaro kooxda gaadiidka oo kamid ah kooxaha horyaalka dalkeena Soomaaliya. macallin Daadir Amin Cali Daada oo kamid ah macallimiinta horyaalka dalkeena Soomaaliya oo maanta markii la soo bandhigay kadib isaguna sidoo kale arintan ka hadlay, waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu adeega ciyaaryahankan helo. gaadiidka suuqa sanadkan waxay sameynaysaa isbeddello kala duwan, waxayna isku dayaysaa inay soo qaadato ciyaartooy kale oo ay suuqa si aad uga kalumaysato.